markaad aragto sawirka ninkan waxa ugu horeeya maskaxdaada ku soo dhacaya waa nuclearka dalka waqooyiga Kuuriya. 9kii bishii Oktoobar ee sanadkii 2006 ayuu dalkan waqooyiga Kuuriya si rasmi ah u noqday dal haysta hubka sida daran wax u gumaada ee nuclearka. Hubkaasi oo dalal badan oo caalamka ah ay ku riyoodaan helidiisa ama isku dayeen inay helaan. Ka bilow Ciraaq iyo Liibiya, Iiraan iyo Suuriya, Jarmalka iyo Jabaan iyo dalal kale oo badan oo caalamka oo isku dayay helidda hubkan balse ku fashilmay. dalalkaasi qaarkood ayuu isku daygaasi ugu kacay qiimo aad iyo aad u weyn oo ah in isku daygaasi uu kalifay burburka dalalkaasi gebi ahaanba. waqooyiga Kuuriya waxaa la sheegaa inay haystaan ilaa iyo 50 madax oo nucleara. haddaba sidee ayay ugu suurto gashay Kuuriyada waqooyi inay helaan hubkan? sidee ayuuse ahaa hayaankii iyo waddadii dheerayd ee ay u soo mareen helidda hubkan? balse intaannu gelin waxaan ka codsanayaa fadlan inaad like saarto muuqaalka si shargariso la wadaagta asxaabtaada aad iyo aad baad u mahadsantahay. dalka waqooyiga Kuuriya waa dal dhaca bariga qaaradda Aasiya, si gaarana waxa uu dhacaa Korean Peninsula ama jasiirado ekaha Kuuriya ee ay labada Kuuriya wada degan yihiin. dhowrkii biloodba mar waxaa caalamka laga maqlaa waqooyiga Kuuriya oo tijaabinaysa gantaalo cusub oo riddada dhexe iyo riddada dheera ama gantaalada ballistiga ah iyo kuwa qaada madaxyada nuclearka. waxayna sheegaan oo ay mar walba ku celceliyaan in gantaaladoodu ay awood u leeyihiin inay gaaraan dhulka cadowgooda koowaad ee Maraykanka, oo ay u arkaan inuu yahay isha uu ka soo burqado sharka caalamku. cadaawadda Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya ayaa salka ku haysa in Maraykanka uu saaxiib dhow leeyahay cadowga waqooyiga Kuuriya ee koonfurta Kuuriya iyo Jabaan. sidoo kalena Maraykanka uu la safnaa koonfurta Kuuriya dagaalkii labada Kuuriya ee 1950. aragtida iyo riyada helitaanka nuclearka ee Kuuriyada waqooyi waxay soo bilaabatay sanadihii 50 qarnigeena dhaafay, xilligaasi oo uu dhammaaday dagaalkii labada Kuuriya ee u dhaxeeyay waqooyiga Kuuriya oo garab ka helaya Sofiyeetka iyo Shiinaha iyo koonfurta Kuuriya oo garab ka helaysay Maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka. kadib dhammaadka dagaalkan, waqooyiga Kuuriya waxay go'aansatay inay helaan hubka nuclearka ah si ay uga nabad galaan duulaan uu ku soo qaado Maraykanku, maadaama uu sal dhigtay oo uu fariisimo ciidan ka samaystay dalka dariska la ah ee koonfurta Kuuriya. sanadkii 1963 Kuuriyada waqooyi waxay Sofiyeetka ka dalbadeen inuu ka caawiyo siday u samaysan lahaayeen hub nucleara, balse Sofiyeetku waa uu diiday dalabkaasi. taas beddelkeedana waxa uu oggolaaday inuu waqooyiga Kuuriya ka kaalmeeyo inay samaystaan barnaamij nuclear silmiya ama barnaamijka korontada looga dhaliyo tamarta nuclearka. waxayna ka saacideen inay u tababaraan khubaro nuclear oo ka shaqaysa barnaamijkaasi. sidoo kale markii uu Shiinuhu samaystay nuclearka si la mid ah sidii hore, waqooyiga Kuuriya waxay ka codsadeen Shiinaha inay ka saacidaan samaysashada hub nucleara, balse Shiinuhu sidii Sofiyeetka oo kale iyaguna waa ay diideen, maadaama Shiinaha naftarkiisaba uu saameeyay culaysyo kaga yimi samaysashada ay samaysteen hubka nuclearka. injineeradii Sofiyeetku waxay ka saacideen waqooyiga Kuuriya sidii ay u dhisan lahaayeen goob cilmi baaris nucleara, waxayna bilaabeen dhisidda xarunta cilmi baarista nuclearka ee lagu magacaabo Yongbyon Nuclear Scientific Research Center. xaruntaasi gudaheedana waxay ka sameeyeen bacrimiye nuclear oo uu noociisu yahay IRT-2000, waxayna xaruntaasi diyaar noqotay oo shaqo gashay sanadkii 1965. waqooyiga Kuuriya waxaa looga shakiyey inay dhisanayaan nidaam nuclear dagaal kadib markii ay soo saareen xaddi badan oo maadada plutoniumka, waxaana lagu cadaadiyey waqooyiga Kuuriya inay nidaamkooda nuclearka ku ekeeyaan mid silmiya. sidoo kalena waxaa lagu cadaadiyey oo lagu khasbay inay xubin ka noqdaan hay'adda tamarta atomikada caalamiga ama International Atomic Energy Agency oo loo soo gaabiyo IAEA. sanadkii 1992 ayay hay'adda tamarta atomikadu kormeerkeedii ugu horreeyay ku sameeyeen nuclearka waqooyiga Kuuriya, waxayna ogaadeen in waqooyiga Kuuriya uu soo saaray xaddi badan oo maadada plutoniumka oo ka badan intii loogu talagalay. markaasi kadibna hay'adda atomikadu waxay codsatay inay hesho xog dheeraad ah, sidoo kalena loo fasaxo inay kormeer ku sameeyaan 2 xarumood oo lagu daadiyo haraadiga ama wasakhda nuclearka oo ku yaalay deegaanka Yongbyon, balse North Korea dalabkaasi waa ay diiday. kormeerayaashii ka socday hay'addu
waxay caalamka u sheegeen in kuuriya ay dhisanayso nukliyar dagaal, sidoo kalena ay diiday in kormeer lagu sameeyo xarumahooda. xilliyadaasi Maraykanka ayaa ka guulaystay Soofiyeedka, oo waxay ahayd bilowga sagaashameeyadii oo ahayd markii uu burburay Soofiyeedku. waxaana xilligaasi Maraykanka madaxweyne ka ahaa Bill Clinton. Maraykanku waxay qorsheeyeen inay dagaal ku qaadaan North Korea oo ay duqeeyaan xarumaha bacriminta nukliyarka ee waqooyiga Korea. Maraykankuna ciidamadiisi waxa uu u diyaar gareeyay dagaal ay la galaan Kooriyada Waqooyi. iyada oo dagaal qarka loo saaran yahay ayuu madaxweynihii hore ee Maraykanka ee Jimmy Carter uu booqday caasimadda waqooyiga Korea ee magaalada Pyongyang si uu ula kulmo madaxweynihii dalkaas ee Kim Il-sung. Jimmy Carter ayay ujeedka booqashadiisani ahayd inuu labada dal ee Maraykanka iyo waqooyiga Korea uu dhexdhexaadiyo, sidoo kalena uu xaalka dejiyo. kadib kulankaasi xiisadii dagaal waa ay dintay, labada dalna waxaa u bilowday wadahadal, waxayna gaareen heshiis lagu magacaabo Agreed Framework. heshiiskaasi oo sheegaya in dowladda Pyongyang ay joojiso soo saaridda maadada plutoniumka, sidoo kalena ay gebi ahaanba baabi'iso mashruucooda nukliyarka si uu u soo noqdo xiriirka labada dal. sidoo kalena in Maraykanku ka caawinayo North Korea samaysashada nukliyar silmiya. sidoo kalena uu sanad walba Maraykanku siinayo North Korea 500,000 oo tan oo heavy fuel oil ama shidaalka culus ee loo adeegsado xarumaha dhaliya tamarta iyo gaadiidka aadka u culculus sida maraakiibta aadka u waaweyn. shidaalkan ayuu Maraykanku u siinayay North Korea si uu bedel ama magdhow ugu noqdo shidaalkii kaga khasaaray samaysashada nukliyarka, maadaama lagu heshiiyey in la baabi'iyo nukliyarka Korea. sanadkii 2002 Maraykanku waxay aaminsanaayeen in Korea ay bilowday samaysashada ama raadinta qalabka bacriminta nukliyarka iyo soo saaridda plutoniumka, taasi oo ah mid ka baxsan heshiiskii ay labada dal wada galeen. North Korea waxay Maraykanka u sheegeen inaysan hadda ku hawlaneen samaysashada nukliyarka, balse ay xaq u leeyihiin midaasi maadaama uu Maraykanku ku fashilmay fulinta qodobadii heshiiskii Agreed Framework. sanadkii 2002 kormeerayaashii hay-addii atomikada ayaa ogaaday in waqooyiga Korea ay si qarsoodiya u wadaan bacriminta maadada uraniumka, waxayna dalbadeen in arrinkaasi ay xog badan ka ogaadaan loona ogolaado inay kormeer ku sameeyaan xarumaha ay uga shakiyeen arrinkaasi. balse North Korea waxay arrinkaasi kaga jawaabtay inay dalkeeda ka cayrisay xubnihii kormeerka ahaa ee hay-adda atomikada. sanadkii xigay ee 2003 North Korea waxay ka baxeen heshiiska ka hortagga faafitaanka hubka nukliyarka ama Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons. 9 bishii Oktoobar ee sanadkii 2006 waxay ahayd maalin North Korea uga duwan maalmaha kale ee caadiga. North Korea maalinkaasi waxay soo bandhigeen awoodooda nukliyarka, waxayna sameeyeen tijaabo nukliyar oo dhulka hoostiisa. tijaabadan oo ka dhacday xarunta tijaabada nukliyarka ee Punggye-ri Nuclear Test Site. sidaasina waxay North Korea kaga mid noqdeen dalalka farakutiriska ah ee haysta hubkan sida daran wax u gumaada ee nukliyarka. sirdoonka Maraykanka ayaa dhowr maalin kadib si rasmi ah ugu dhawaaqay in tijaabadani ay ahayd mid sax ah markii ay hawada ka heleen qurubyo ama baartikala yaryar oo shucaaca nukliyarka. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa cambaareeyay tijaabadan, waxayna soo saareen resolutionka nambarkiisu yahay 1718, kaasi oo cunaqabateyn dhaqaale lagu saarayo dalka waqooyiga Korea. ilaa iyo dhowr jeer oo kale ayay dowladda North Korea samaysay tijaabooyin nukliyara, sida 25 May ee sanadkii 2009 oo ay sameeyeen tijaabadoodii labaad ee nukliyar. sida ay geologistayaasha ama khubarada dhulka ee Maraykanku sheegeen, tijaabadani labaad waxay ahayd mid ka culus midii hore. si la mid ah 12 bishii labaad ee sanadkii 2013 ayay mar saddexaad tijaabiyeen nukliyar cusub. waxaana jira ilaa iyo 3 jeer oo kale oo ay North Korea tijaabisay nukliyar cusub ay soo saareen. tirada madaxyada nukliyarka uu haysta dalkani ayaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 50 madax oo nukliyara. dalkani North Korea kadib samaysashada hubka nukliyarka iyo tijaabooyinkan badan ay sameynayaan, waxay kala kulmeen cunaqabateyno tiro badan, kuwaasi oo dalkani ka yeelay inuu noqdo dal ka go'doonsan caalamka intiisa kale. aan kula kaftame, macquul ma kula tahay inaynu inagu samaysan karno hub nukliyara
sanad keesa ku qiyaasaysaa inaynu samaysan karno hubkan? aad baan kaaga mahadcelinaya inaad la soo gaartay halkan. fadlan ha ilowin inaad like saarto muuqaalka, sii share garayso la wadaagta asxaabtaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.